tan wax baraayo iyadoo ilmaha kale wax baraysa waxay soo xasuusatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa mar kale muuqaal cusub iyo walaashin warsan Cabdullaahi YouTube channelka iga daawanaysid waa ku guuleysan nolosha fadlan hadaa igu cusub subscribe hadaa hore nolol joogo jirta like share and comments waana ku mahadsantihiin sida quruxda badan ay la socoteen. waa mar kale muuqaal cusub. qisadani waxay ku bilaabanaysaa sida tan: hooyo caruurteeda ka caawinaysa homework ama u celinaysa cashirka iskuulka laga soo siiyay ayaa wiilkeeda yar wixii u dhiibtay ama siisay buug iyo qalin, waxayna ku dhahday wax sii sawir meeshan sii joog. ilmaha inta kale intaan wax baraayo iyadoo ilmaha kale wax baraysa waxay soo xasuusatay ninkeedii aabihii oo xanuunsanaa oo waayeel ah oo guriga banaankiisa qol yar albaab banaan ah uga dhisan yahay oona xanuun dartiis u hadli karin ama u dhaqaaqi karin ama u soo kici karin. ayay soo xasuusatay inay casho u geynin. way carartay cashadii u geysay waxayna soo laabatay. waxay aragtay wiilkeedii yaraa oo sawiray guri weyn iyo meel yar oo irid banaankeed ah oo goolad ah. waxayna ku tiri, xabiibi waa maxay gurigan quruxda badan ee aad sawirtay? wuxuuna ku yiri, gurigani waa guriga weyn oo quruxda badan waad arkaysid, waa guriga mustaqbalka aan degi doono markaa weynaado ani iyo xaaskayga iyo caruurtayda. markaas intay fiirisay ayay ku tiraahday, qolkan yarne muxuu yahay yaana degaayo? wuxuu ku yiri, adiga ayaa degayo. way isku naxday hooyadii. waxay dhahdeen, markaa weynaato. wuxuu yiri, markaa weynaato ayaa qolkaasi u dejinayaa. markaas ayay cabsatay, naxday, fakartay. wuxuuna dhahay, maadaama aad aboobe qol kaligiis oo banaankaa dejiseen waa caadi, idinkana markaad waayeel noqotaan qolkaas ayaa idin dejinayaa, waana caadi. hooyadii hadalkii ayaa qalbigeeda taabtay sidii buur inay kusoo dunto culeyskeeda ayuu ku noqday. hadalkii qalbiga ayuu uga dhacay. way qiirootay. markaas ayay ku fakartay oona go-aan qaadatay. go-aan waxay ku gaartay inay kasoo rarto odayga meesha ay geysay. waxayna u geysay ama ay u wareejisay dejisay qolka martida ama dayuur oo dadka martida ah loogu talagalay. dadkii martidana waxay geysay gurigii banaanka ahaa ee irid banaanka. markaas waxaa yimid ninkii odayga ahaa ama ninka odayga ah aabihii calashan xaajigeeda isagoo yaaban isbedelka maanta guriga ka dhacay. wuxuuna ku yiri, maxaa maanta isbedelay? markaas iyadoo ooynaysa ayay ku tiri, wiilkeena yar markuu weynaado gurigan ayuu na deji doonaa qolka yar halka asaga iyo xaaskiisana qasriga weyn ay degi doonaan. oo sida hadda aaba aan u dejinay oo kale meesha golada oo qolka guryaha ka baxsan ayuuna deji doonaa. dadna nama arki doonaan, dadna ma arki doono oo nama soo booqan doonaan. dadka dhan ayuu naga qarin doonaa oo naga fogeyn doonaa. markaas ayuu wuxuu ku yiri, arrin fiicanaa samaysay maadaama aad aabe inta keentay calashaan banaanka kasoo xareysay. odaygii isagoo faraxsan oo qalbigiisa degsan yahay ayuu indho naxariis leh oo fiican ku fiiriyey. markaas ayay hooyadii u soo laabatay wiilkeedii. wiilka yaraa qolkii banaanka ahaay ama maqsinkii banaanka ku yaalay wuu tirtiray. wuxuuna ku yiri, qasrigan weyn gurigan weyn ayaan ku wada noolaan doonaa. qisadan waxaan ka baranaynaa sidaad waalidka ula dhaqanto ayay caruurtaadana kula dhaqmayaan. muuqaalkan haddaa ka heshay sheer garee waana ku mahadsantihiin sida quruxda badan ay la socotaan. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله